nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa arkay wiilkan yar ee dadaalaya dabeetana waxaanu nabigu ciddii wax u samaysaa waa u abaalgudi jiray abaallaawe mar raba ma ahayn maalintii dambuu nabigu u yeedhay wiilkiiyo wuxuu ku yidhi sal waar bal waxi weydiiso maxaad doonaysaa buu ku yidhi maxaan kuu qabtaa waatana aniga waad i caawisaye adna waxaan kuu qabto sheego riwaayadka qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow aan soo fakaro soo tashado u tashado wuxuu yidhi war nabi maxamed maxaad weydiisataa dabeetana wuxuu yidhi war adduunya haddaad weydiisato sow barri dhiman maysa adduun muxuu tarayaa waa nin baahanoo masaajidka xaggiisa dambe hurdaan waxba haysanin kaan waxba haysanin ayaa haddana adduun agtiisa wax yar ka yahay oo wuxuu leeyahy war haddaad waxoogaa xoole adduun nebi maxamed weydiisato adduun muxuu yahay soo barri laga tegi maayo wuu soo noqday wuxuu yidhi waan tashaday ilaahay rasuulkiisiiyo haye maxaad rabtaa wuxuu yidhi waxaan rabaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan saaxiib kugula noqdo adduunka waa anigana waan ku arkaayo waa kaag dhowahaye jannadana inaan kaag dhowaado yacni waa jannada dhulkeeda sare inaan ana tago riwaayadka qaarkood nebigu wuxuu yidhi war yaa kugula soo teliyey tala nin yar ka weyn dee tani tala nin yar ka weyn yaa kula soo teliyey buu ku yidhi wuxuu yidhi cidna adduunkaan arko dee adduunku markaan arkay inaanu wax nafla ahayn ayaan sidhi buhi nebi maxamed ha ka hadhin ee aakhiro jannada xagguu tago inaan la ku geeyo weydii awa hayra daalik buu nebigu haddana yidhi waar waxaan taa ahayn may weydiinaysaa jannada ilaahay ba hayee bal wax kaloo waxun may weydiisanaysaa may buu yidhi anugu intaasaan rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu ku yidhi haddaba acinnii على كثرة السجود بل هدبا أدنا يقول الددال ويقول قرقار سجود بدني صلاة دينات باديصو أدنا بالددال أنا إلهي كوبري سبحانه وتعالى يعني هم يجيسو هالكاسو تشوغا نبو عليه الصلاة والسلام وحكوت المامية تدك وقت باكو يمن دونا قفكو الدين تيساينو هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا رمضان وابل الصومة وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار إن شهادة لها لقفك إن نار إلهي كحريي وإن شركي سنار تابا دونين وبال داغ قفك مسلم كوبرطية وحبحنته وبال قفك استو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي يقول نقض سبحانه وتعالى وابلو نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك اللو ترغيبين يلو علي سين يا الله سبحانه وتعالى إن الباب دا جنة الله فره الباب دا النار تنا لحده وحيابها دتك عرقلة دي جنة اسكهر تاغا أما النار تكدر قيا كتخن تخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يغنا إن لحده وبالروح ذا قفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدي أما حنبار سنايا سنة كردنك سوداعي سينا ربي كدتشيو إذا نوحي سويدين تلي مركاسين وقود ديار قروبين يورو مركان تقانو قادي أف صومالي قولوا دين تكمدي أف صومالي قولوا دين تكمدي واففك مسلمين واللغة دين حنبار سن ويردش ما أنت يورو بشوكتاه الصوماليات intooda badan iyo Soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba ka garanayn kaas gurigiisa uu haysta adiga hadduu ku yimaado waa waageeni isma fahmaysaa sida awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya inanka Soomaaliyeed ee Norway ku karaamay Sweden ku karaamay Denmark ku karaamay Germany ku karaamay af Soomaali ma hayo هدوء في الصومالي ويا يودين كبرنا يا بايدي كان يوديني هاي يودين بريا ما في عرب وبرتادو ما لين سايو دين تكو برنا شاف النرويج ديني وقرنت ما يا حقو مركا الدين كبرنا يا كاسي كوسي دلم حو بريا أيعجز أحدكم منه مرمتكين يكري كري وايا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة مالك استينات كل حسنة شقيسة 100 دودي كري وايا الرجي بيشة فديبة وحيل
كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة ومثل يسوق كن حسنة وشقيسان كرا كن أجر وهلي كرا قال يسبح 100 تصبيحة فيكتب له 1000 حسنة يبقى القربة سبحان الله وراني سايو حلقو قرية سبحان الله انت كا قادن بقول قرة سبحان الله less than 1 minute waxa qoran wuxuu cuni jiray wuxuu xidhan jiray musqusha sidii uu gali jiray musqusha markuu galaya labada adinku horeysiin jiray musqusha markuu ku jiro gacantu isticmaali jiray ee wax iskaga meeyri jiray yaani qof noloshiisa wax qarsoon aanay ku jirin waxa qoran kabihiisu intay laakaayeen cidhibta iyo xagga hore midka ay u buuraayeen in dhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn saddexda qaybooda kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nabi maxamed way qorantay calayhi salaatu wasalaam waxa qoran wuxuu mara qaatay midabkay lahaayeen waxa qoran wuxuu cunay waxa qoran wuxuu meel istaagay waxa qoran wuxuu dagaal galay waxa qoran wuxuu qof bini aadam la hadlay waxa qoran wuxuu cibaadaystay waxa qoran wuxuu ummad hogaamiyay waxa qoran noloshiisa oo dhan ba makshuufa dabeetana waxa la leeyahay waa taariikhdii nabi maxamed bal meel ceeb la ka soo saara qof aan taariikhdiisa waxba qarsoonayn ee wax wal oo noloshiisa ka midiba uu ritan yahay oo la tilmaamayo meel ceeb ka soo saara